munaasabadan hablaha iyo hooyooyinka dhalinyarada bahda saxaafada culimada diinka dhammaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaada kadib waan ka mahad celinayaa xafladan soo dhaweynta ah. runtiina waxaan isleeyahay waxyaalo fara badan oo aada ku hadasheen oo ammaan ah. aniga naftayda waxaan isleeyahay ma mudni mana ihi. idinkuna wanaag iyo walaalnimaad cabirteen, xaqiiqadaydana anaa og, ilaahayna waa ogi. marka wixii qarsoon allah noo dhaafo. idinkuna waa mahadsantihin, jazaakum allahu khayran. ii saamaxa waxyar daqiiqado in aan wax yaro taariikha idinla wadaago. 10kii sano ugu dambeysay 2009 ayaan magaalada muqdisho imid. waxaan u imid inaan ka qayb galo shir ay lahaayeen culimada soomaaliyeed. waa xilligii dowladdii shariif lagu soo dhisay Djibouti oo ay magaalada muqdisho tahay. shirkaas go-aamo iyo bayaan baa ka soo baxay, culimada soomaaliyeed soo saareen. xaalad adag baa lagu jiray, xaalad kala guuraa lagu jiray, xaalad ninkii joogay baa garanaya aada iyo aada halis u ah baa lagu jiray. shirkii culimadu markuu dhammaaday, aniga iyo 5 kaloo culimada ka mid ah ayaa waxaa naloo diray 2dii urur ee wadaadada ahaa ee hubaysnaa oo markaa ay dowladdii shariif iska soo horjeedeen. ururkii xisbulislaam iyo madaxdiisii oo markaa uu hogaaminayo doctor cumar imaan, iyo ururka al-shabaab oo oday markaa u ahaa axmed godane. labadooda waa la fadhiisanay. labadooda waxaan ka dalbanoo ka codsanay, xaaladdu waa isbedeshay. dadkii shalay aada wax wada wadeen maanta inaad waddanka dhexdiisa ku dagaalantaan sax maaha. heshiis iyo wadahadal fura. ummaddana 10 sano 20 sanood dambe oo dagaal iyo dhib ah inay sii gasho sabab ha u noqonin. qoliyii xisbulislaam warcad maynana siinin. qoladii al-shabaab waa masalo taariikha, hadda ka hor meelo badan kama sheeg. waa la fadhiisanay. axmed godane ayaa oday u ahaa. fadhi dheer baan la qaadanay, duurkii ilaa cishahan la fadhi. wax walba waa naga diideen. markay naga diideenna waxaan u tilmaanay, odayaal baa ila socday, sheekh cali warsame, macalin maxamuud allah u naxariisto waa dhintay, sheekh nuur cali jaamac oo maanta jooga magaalada muqdisho. muxuu ahaayey raggaasaan ahayn. markay naga diideen oo ay yidhaahdeen wadaadahan war xogeyn baa tihi, waaqicana waa ka dhacsantihi. 4 kun oo waxaa joogay ugandhiyaana magaalada muqdisho. 4 kunna waxay dhaheen gelin baan eriyeynaa. annaguna waxaan ku nidhi ma eri kartaane 40 kun horta 20 kun iyo 30 kun bay ku imaan doonaan. بسم الله. فريستة هلا فريستة فريستة الله عافية. لا عافية. هلا فريستة إلهي عافية. آمين الله. آمين. عافية الله. وصوت قابلية هيران هذا صوت قابلية بلد كاس markay wax walba naga diideen waxaan ku nidhi mushkiladu way sii siyaadi doontaa. idinkii xisbulislaamna waad islayn doontaan, ummadada qaybteeda kalena waad islayn doontaan. ciidamadan hadda aad leediin waan saaraynaan way soo siyaadi doonaan. marka dambana waxaad isu rogi doontaan idinkii ummadda inteeda kale inaad noqotaan.
culimadii saasay u jeediyeen waana ka soo tagay maalinkii labaad baan aniga keligii ku noqday maalinka labaad waxaan kala niqaashay masaa'il diini oo ku saabsan gaalaysiinta muslimiinta xaqdarra lagu gaalaysiinayo iyo dhiiggooda la bannaysanayo niqaash dheer baan kala galay axmed godane nin la yidhaahdo fuaad shongole nin la yidhaahdo maad karatay kulligood way fadhiyeen waxaan kala niqaashayaa dhiigga soomaalida iyo muslimku inuu xaaraan yahay gaalaysiintan ay dhiigga ku bannaysanayaanna inuu xaaraan yahay ayaguna dood dheer baa la dhex maray keligii baana markaa maalinkii labaad baan ku noqday oo masale taariikhowa 10 sano ka hor waxaa dhacday markaa kadib inaan bilaabay muxaadaraad magaalada muqdisho aan afkaartaa kaga digayo masaajidka abu hurayra baa waxaan ku qabtay ciddii joogtay waa joogtay muxaadaro aan kaga hadlayo dhiigga muslimka iyo gaalaysiinta muxaadaradii labaad waxaan ku qabtay suuqa xoolaha muxaadaradaan ku qabtay halis baan gallay waardiyaan watay muxuu ahay maxaakimta qaar ka mid ay waardiyeynayey inay nallaayaan bay qarka u istaageen silix baan ku bakanay muxaadaradii saddexaad waxaan ka dhigay magaalada xaafadda madiina meesha la yidhaahdo saldhigga galbeed meel bannaan ayaan ku qabtay halka muxaadaradii iyadoo socota saldhig baa noo dhowaa intayna dhaafeen ayagoo hubaysan oy saldhiggii xabada ku rideen baa madaafiic lagu muxuu ahay nalagu soo riday dadkii way isjiireen waxarara carruurtii dumarkii halis baa la galay waxay ahayd 10 sano ka hor bay magaalada muqdisho yahay markhaati baa laga wadaa waxaa raacay wafdigii qatar aaday xilliga isaga ah oo odayaal iyo culimo isugu jiray oo ay ka mid ahaayeen odaygii la dhihi jiray muxuu ahay nabadoon xasan muxuu ahaayey xaad inuu nool yaan u malaynayaa waxaa ka mid ahaa axmed diiriye nabadoon axmed diiriye allah u naxariisto inuu dhintaan u malaynayaa qatar wafdigii aaday baan ka mid ah waan soo noqday magaalada nairobi waan ku noqday muxaadaraad musalsal ah oo aada u badan oo dhiigga iyo gaalaysiinta ku saabsan baan ka galay kadib munaasabad kasta oo ummadda lagu qarxiyo ama dhib loogu geysto munaasabad kasta waxaa kaga hadli jira khudbado iyo muxaadaraad baan kaga hadli jira wixii aan kari karnana ummadda waa la soo gurmanaynay tii u dambaysay zoofe oo middaa hadda aada xusuusataan ah waxaan ka galay khudab fara badan wixii ilaahay uuna waafajiyeyna ummadda unkeena oo usoo ururinay xataa waxaa dhacday in anigoo jooga magaalada nairobi intii uu noolaa axmed godane waa qadiyad hadda ka hor cidna aan u sheegay irkuu iisoo diray wuxuu igu yidhi waxaan fariin kaaga wadaa ninkuu iisoo diray waxaan fariin kaaga wadaa ninkii odayga ahaa waxaana uu rabaa inaad wada hadashaan oo heshiisaan waxaan ku yidhi maxaan ku heshiinaynaa wuxuu yidhi wuxuu rabaa inaad aduguna radiinta ka dayso ood ka aamusto ayaguna ku nabadgeliyaan waxaan ku yidhi taa macnaheedu waxa weeye lafahaaga ilaasho dal iyo diin iyo nimankan kadaati waxaan isku hayno naftayda maaha naftayda goortii ilaahay qadarey bay bixi laakiin dal iyo diin baan isku haynaayo hadday diyaaru yihiin inaan ka wada hadalno ka niqaashno meeshay rabaan baan ku tegaya laakiin hadday tahay lafahaaga ilaasho wax nin weyn loola yimaado ma haba ku intaasoo dhan markay dhacday magaalada nairobi waa la ogaa waxaa jirtay salaadaha habeenka hadduu soo galo cishe iyo maqrib iyo salaada subax waqti aanan masaajidda ku tukan jirin baana soo martay hanjabaad iyo handadaad iyo halis aan dareemayno intaasoo dhan markayna soo martay oo intaasoo halis aan soo galo 10 sano ugu dambeysay waxaa wax la yaab la ninka maanta leh fatwadii sheekh umal ayaa carruurtii ku agowooday waa muqdisho joogta oo raba muxaadaro in loo jeedo taariikhda in laga been sheego sax maaha
intaa waa mawaaqif wada caam oo markhaati lahoo la wada joogay wey. haddii aan ummad soomaaliyeed dhiiggeeda daadinayo ama xalaalaynayo markay dhibaatadu gaadho uma soo gurmadeen. haddaan qabo in la daadiyana xoolo uma soo ururiyeen. dareen diineed weeye, mas-uuliyad weeye, culimadu ay qabto waa jirdiiniya wey. intaa waxaan idin taariikhdaasi waqtiga idinkaga lumiyey علشان inaad ogaataan xaqiiqada inaad ogaataan. ummad badan oo been lagu lugooyo waxaan jirin loo sheegayna inay waxa jira ay ogaato. intaas weeye. aad baad u mahadsantihiin. kelimada aan doonayo intaa kadib inta taariikhda inaad idin idhaahdo dadka reer muqdisho waad mahadsantihiin. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. jazaakum allahu khayran. caasimad inuu muqdisho ilaahay ka dhigay waa nicmo ilaahay idin siiyey. ummaddii soomaaliyeed inaad hooyo u noqotaan. caasimaddu waa hooyadii dalka waay. ummaddii oo dhan uruurinaysa. waa meel la wada leeyahay oo meel ummaddu kusoo wada hiranayso. caasimad inuu ilaahay ka dhigay magaalada muqdisho waa qadar ilaahay. idinka dadka deegaanka u tahayna waa nicmo ilaahay idinla soo doonto. nicmadaasna shukrigeedu waxa weeye inaad uruurisaan ummaddii soomaaliyeed. inaad ummaddii soomaaliyeed hooyo u noqotaan. in ruux kastoo soomaaliya meeluu ka soo jeeda markuu muqdisho joogo uu dareemo inuu dalkiisii joogo, inuu caasimadiisii joogo, inaan laga xigin, ninna inaan loogu cagajuglaynin. nin walba ehelkiisii iyo dalkiisii iyo caasimadiisii inuu dareemo. taasi waxay keenaysaa in ummaddu usoo hilowdo caasimadii, inay ummaddu usoo noqoto caasimadii. dowladdii baa joogta, caasimadii dalka. in qaabka aanu u fikirno waana sidaad u fikiraysaan. la soo celiyo, ummaddii loo soo celiyo. arrintaasi waa arrin aad iyo aad muhiim ay tahay. waana idin farayaa. waadna farsoon tihiin, waadna ku baraarugsan tihiin. laakiin ha la xoojiyo wayaan ujeedadeedu. caasimaddu way ka duwan tahay dalka intiisa kale. ilaahayna tabaaraka wa tacaala ha idin barakeeyo. qodobka labaad wuxuu yahay caasimaddu waxay saldhig u tahay dowladdii. dowladdana haddii aynan la garab istaagin sistamku dowladdu ma dhismo. dowladdu ashkaas kuraas ku fadhida maaha. dowladdu waa system iyo nidaam waay. mushkilada inaa haysatana waxa way waxaynu ilaahay hadda kala saari la'nahay system iyo nidaam iyo ninka ku fadhiya. ninka ku fadhiya maanta mid baa ku fadhiya, berrina mid baa imaan doona, shalayna mid baa jooga. systemku laakiin waa daa'im waay. systemku waa joogaa. systemka ummaddii baa intifacsanaysa. shalay mid baa joogay waa ka tegay, maanta mid baa jooga waa ka tegi doonaa. laakiin waxa ay ka tegayaan dhaxalka ah ummadda iskale. marka dhaxalka inaan wada kobcinno, oon dhaxalka wada dhisno, oon dhaxalka wada garab istaagno, oo aan loo burburinin, oon loogu kicin, oon loo qasin calashaan hebel baa ku fadhiya oo ree hebel ah, ama hebel oo necbahay baa ku fadhiya. hebelkaasi macno weyn ma samaynayo, laakiin systemka muhim. marka systemka dhaxalka ah alla dhiso, ana la wada garab istaago. rabo inaan intaa kadib kusii dheeraado. kelimadeeda ugu dambaysa waxaan leeyahay culimada soomaaliyeed meel kastay joogto, sida la sheegay culimadu waa inay noqoto meeshii ummaddu ku dayan lahay. midnimada lagaga dayan lahay, walaalnimada lagaga dayan lahay, wada jir kaga dayan lahay, akhlaaqda wanaagsan lagaga dayan lahay, ummadda in loo turo oo loo naxariisto lagaga dayan lahay, naseexadii waajibkee saarnayd inay gutaan. halkan markaan imid madaxdana waa la kulmay. hadda dowladda hogaamisa labadii madaxweyne horena waan la kulmay. madaxweyne shariif iyo madaxweyne xasan gooni baanu la kulmay. waxaanu la kulmay sheekh cali baa ila joogay, sheekh bashiir baa ila joogay. waxaanu la kulmayna waxay ahayd inay dhahdo dalka u tura, dalka u tura. dalku mucaarado iyo hadal iyo ma xamili karo. marka nasiixaana saaran, inaan hagaajinaana saaran, inaan ummadda u noqono qudwo lagu daydo ayaana saaran. laba arimood culimadu inay kala saarto waay, siday culimadii ugu horreysayba sheegeen. midda koowaadi waxa weeyaan markaad adigu madrasadaada iyo masaajidkaaga iyo xertaada iyo inta ku raacsan wax u akrinayso, waxaad diin ahaan ugu qanacsan tahay u akri. laakiin markay timaado maslaxada guud iyo danta guud ee ummadda ka dhaxaysa, ninna kama lihid. ummaddaa nagala dhaxaysa, annagana qayb baan ka nahay. ummadda qarannimadeeda
wada jirkeeda, nabadgelyadeeda, is-ilaalinteeda, sulxigeeda marka ummadda soo gaadho oo masaalixda guud ay timaado waa inaad ka timaado madrasadaadii khaaska ahayd qanacsanaantaadii khaaska ahayd taa gooni ha ku ahaato tanna ummadda la wadaag taana markay gooni ku ahaato waxaad sheegayso diin ugu qanacsan diinaan ugu qanacsan tahay sheeg aad baad u mahadsantihin jaabir waxaan ku gabagabaynayaa aniga ka shaksi ahaan aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta waana runtii waxa weeye waa idinka aqbalay soo dhaweyntii iyo xifladan iyo ka horba raallina waan ka ahay haba yaraatee nin u dudsanna malihi muxaadaraa laguu diiday kuma dudsan mana sheeganayo magaalada muqdisho ayaa lagugu takooray ma qabo mana qabo inaad raalligeli isiisaan sababtu waxa weeye wax dembi ood iga gasheen ood iga ma jiro markaan jawaabayana waxaa dhi muqdisho oo magaaladayda haba yaraatee cuqdad aan la noqonayana ma jirto insha allahu tacaala hadday duruuftu ii saamaxdana waan soo noqon oo waan idinla joogaa insha allahu tacaala sheekha muxuu ahaay walaalaha qaarkood hadalkooda wadaadada kala qabta uu ka muuqday wadaadada kala qabta ma aha masaladu wadaadada kala qabta ma aha masaladu waxa weeye wadaad baa khaldamay ninka khaldamayna waa in la yidhahdo waad khaldantay saasay meesha ku hagaagtaa annagu intaan doonanay khalad maana abuurin mushkilo maana abuurin ujeedadeyduna ma aha inaan muxaadaro dhigo markaan meesha imaanay laakiin bulshada qaar ka mid ay culimada iga codsaday dhowr beli nala joog khudbada jumcadana noo jeedi muxuu ahaay muxaadaraadna magaalada ka jeedi waan baaqday anigoo magaalada nairobi hawlo badan kule waa saa u baaqday hadday mushkila abuurantayna go-aan waxaan qaatay intii hataa iska dhaaf dhiig ku daateen ruux soomaaliya intii lagu xidhi lahaa ama xabsi ku geli lahaa sababtay ayada dhahla kanso ayadoo weliba dawladdu ku madax adag tahay